السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كبعد ardayda casharkii koobaad waxaynu ku qaadanay installation-ka ama qaabka loogu shubanayo application-kan computer-ka. waxaana rajeynayaa dhammaantiin idin ku jiro insha Allah. casharkan labaad waxaynu ku qaadanaynaa ugu horeyn horta barashada ay tahay inaynu kala barano goobahan waxa ay qabtaan, goob walba shaqo ay qabataa. waxaynu kala ku baranaynaa qaabka video-ga loo jarjaro, inta loo kala jaro inta aanad doonayn la isaga tuuro kabacdi la isugu xidho. markaan ku horeeyo sharaxaada goobahan. goobtan iyada waxa la yiraahdaa media files baa la yiraahdaa. waa media file-ka waa goobta wixii aad soo gelaysaa uu ka soo galo ee uu hadhowtana noqdo wax ku rasmi oo yaalo aad marba ka soo qaadanayso. goobtana waxa la yiraahdaa timeline baa la yiraahdaa ama working area. goobta shaqadu ka dhacaysa weeye aad wax ku jarjarayso, wax ku kala hagaajinayso. goobtana waa goobtii aragtida ama view-ga ee aad ka eegaysay, ka arkaysay hawsha waxaanad hayso. maadaama oo aynu horta saddexdii goobood kala sharaxnay, waxaynu haddaba sameynaynaa in aynu soo gelino video-gii aynu jarjari lahayn. marka halkan waad ka soo gashan kartaa, balse halkan markaad marka ugu horeysa ka soo gashato mar dambe ma ka soo gashan kartid. marka waxaad sameynaysaa halkaad badanaa laga soo gashto oo ah halkan import. halkaa yar baad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufatid wuxuu ku soo saarayaa intan. marka afartan saroon baa ugu muhiimsan. afartan marka waxa weeye wixii aad ka soo qaadanayso wuxuu import media file. media inaad ka soo qaad media files inaad fileska ka soo qaadanayso ama waxaanad u baahan tahay. halkan marka waa import media files. waa inaad ka soo qaadanayso waxaanad u baahan tahay files, file isagoo ku dhex jira. inaad folder soo qaadanayso. import from a camera or a phone. inaad camera kala soo baxayso waxaana ka soo qaadanayso ama mobile. marka inagu waxaynu ka soo qaadanaynaa files baynu kala soo dhex baxaynaa. aniga waa ku dhuftay imika. goobtii u yaala ayaan ka dooranayaa marka. markaad saa ugu dhufato video-ga dushiisii open baad leedahay. kabacdi waa kaa soo gala goobtii. yes baad leedahay. markuu soo galo dabeetana waxaad sameynaysaa double click. laba jeer baad click ku siinaysaa. waad soo qaadaysaa, waad soo jiidaysaa. goobtan ayaad keenaysaa. waa goobta loogu talagalay video-ga. ma inuu ku habboonaado goobtan ayaad u baahan tahay buu yidhi. haa dheh. markuu saa video-gii kugu soo galo aan goobahan haddaba ku kala sheego. tracks baa la yidhaahdaa. markaa tracksku waxa uu noqonayaa goobaha ay kala galaan codka oo kale, sawirka oo kale, video-ga. markaa application-kan Filmora 9 goobtan video-ga loogu talagalay unba image-kana la geliyaa. mid labaad baad sameysanaysaa marka aad doonayso. halkan ayaad ka sameysanaysaa markaad sameysanayso. manage tracks buu yidhi ku dhufo. add video track buu yidhi ama add audio track. video track baan ku darsanaynaa. wakaa wiina siiyey mid labaad. markuu sidaa yahay haddaba aynu cut ku sameyno oo jarjarno video-ga. video-gii wakan. halkan ayaad tegaysaa. goobta intaad doonayso inaad iska jarto ayaad horta calaamadsani. madaxweynuhu gaarigu koraya. anigu waxaan diidana markaa intaa uu gaarigu korayo waan ka jarayaa. dib ayaan u yar celinayaa. markuu halkaa marayo ayaan dabeetana video-gan dooranayaa. select ma yidhi waan cut garaynaya, waan jaraya. maqaskaa soo ma aragtid. maqaska ayaa kada ku dhufa. maqaska marka dul tagto soo ma aragtid inuu kala jaray. waad soo qaadaysaa bahashan inta dul tagtay iyadoo double click tiraahdo ayaa soo qaadaysa. soo ma aragtid inay jaran tahay. soo qaad inta gaariga ay dhaafi. soo jiidaya ilaa inta gaarigu ku jiro. soo ma aragtid. markuu halkaa yimaado ayaad haddana ka daadi dooranaysaa. waad jaraysaa. kabacdi waxaad sameynaysaa intan aad goysay ayaad dooranaysaa. marka aad dooratid ayaad sameynaysaa right click iyadana doorani. kabacdi waxaad dooranaysaa delete. markaad delete siisid halkan kaalay qaybtan aad soo jiidayso kaalay highlight dabeetana intaad ku dhufatid jiid adigoo ku dhuftay
saama ugu dhufatay soo jiid soo keen markaad soo keentid tanna dib u soo qaad eeg bal haddaba wakaa u fiirso okay miyuu ku jiraa waa maya sidaas ayaad u jarjaraysaa inta doonaysid ka jaranaysaa cashirkuna halkaas ayuu inoogu joogay caawa insha allah habeen dambena waxaa la idinka baahan yahay inaad samaysaan practicalkii waxaan idin leeyahay habeen wacan oo wanaagsan dhammaantiin